السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا نوتحن channel كينا وأنا السلام يا دمانتين. حال إيشو قدبيه إنك استوضن كهذا نوروي أنا تشوفين خلاف كي توفيق إسلامي سنتر ومرلبات سولة بك عليي يعني منكي قولي ستدعها أفضل بي مساجد كإلهي وكمل أها مصطفى حاجي إسماعيل هارون محمد قريولي جاهلكي إبراهيم دارة iyo ninka la yiraahdo iyo Mooryaankii Axmed Qare inay afduubteen masaajidkii Ilaahay dadkiina ay ka cayriyeen marka waxaana soo gaaray bayaan kooxihii ka soo horjeeday ay soo bandhigeen oo ay ku diidan yihiin shirka qowleysatada Mooryaanta iyo daydayga isbahaystay tawfiiq xaaraanta ku qabsaday shantii sano u dambeysay waa Mooryaanta iyo daydayga Mooryaanta gobolada dhexe iyo daydayga ka soo jeeda gobolada waqooyi galbeed Soomaaliya oo ugu horeeyo ninka qaaqlaha ah daydayga ah ee la yiraahdo Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo masaajidkii Ilaahay u isticmaalay meel uu jeebkiisa kaga buuxsado isla markaana uu ku maalgeliyay deegaanadiisa isaga oo hoos jooga welibana meel diinta islaamkana aan lagu xukumin ay haystaan niman dayday ah oo Soomaaliya burburiyay oo SNM la yiraahdo shalayna xabashidu ay gacanta ku samaysay oo gacan ku rimis ah ugu horeeyay ninka la yiraahdo Muuse Handaraab محمد كاهن دقوينة سليمان قال بابا يوسف دعالة أدنى لاسبيان سهرة هلابان إيو فيصل فتحهما ولا لها قرب ككلا إن وحي نوسو قدبيين إن شركاسو وحاران يهي ما ندعي كرتا أي يرادين وحين الدونيان dhaqaale 17 milyan walaalayaal in loo fasaxo dhaqaalahaas oo xaniban oo aan loo fasaxaynin ragga tuugada ah qowleysatada iyo maaragtay nimanka SNM iyo USC u shaqeeya Mooryaanta gobolada dhexe iyo SNM qurmiska waqooyi galbeed Soomaaliya uu hogaamiyaha ka yahay Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun waxaan ummadda Soomaaliyeed marka leenahay bayaanka wuxuu u qoran yahay sida tan bishii 6/19/2009 xeerkii lagu heshiiyay haddaan la marin wax ka shaqeynaya ma jiro maxkamadihiina waa la isla tagay waxaan leenahay marka ummadda Soomaaliyeed meeshaas masaajid ma aha waa meel kalaab ah oo ay ku tuntaan Mooryaanta gobolada dhexe iyo daydayga waqooyi galbeed Soomaaliya marka waxaan leenahay waxba kama jiraan meeshaas wax ka jira ma laha niman gaangisa isugu yimaaday criminal gaangis baa isugu yimaaday uu hogaaminayo qabqablaha dagaalka Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo ku danaysta kuna deyn baxa masaajidka Ilaahay albaabadana isugu xiray inta corona virus ka hor uusan xirmin ayuu ninkaasu xiray isaga oo maaragtay deyntii waqooyi galbeed iyo shirkadihii beenta oo lacagta dadka kaga urursaday ay ku dhacmeen oo niman gaangisa isaga ka gaangisan ay heleen ayaan leenahay marka nimankan ictisaamka wadaadda ma aha waxa weeyaan waa wadaadda saaqiday baa leeyahay wadaadda ma aha wadaad saaqiday waxaan ku naqaanaa Xasan Sheekh Maxamuud wadaad saaqiday waxaan ku naqaanaa shaydaan madoobe Axmed madoobe dhuxulaysta angeeda naar wadaad saaqiday waxaan ku naqaanaa ninka la yiraahdo umal oo maaragtay dhacay dhulkii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd Axmed madoobe uu u xalaaleeyay wadaad saaqiday waxaan ku naqaanaa Shakuul wadaad saaqiday waxaan ku naqaanaa Shibile wadaad saaqiday waxaan ku naqaanaa Bashiir Salaad wadaad saaqiday waxaan ku naqaanaa Maxamed Dir wadaad saaqiday waxaan ku naqaanaa Cali warsame wadaad saaqiday waxaan ku naqaanaa
aadan siiro wadaad saaqiday waxaan ku naqaanaa aadan inshaar wadaad saaqiday waxaan ku naqaanaa casoowe wadaad saaqiday waxaan ku naqaanaa shariif sheekh axmed wadaad saaqiday waxaan ku naqaanaa ninka la yihahdo faarax cabdulqaadir wadaad saaqiday waxaan ku naqaanaa ninka la yidhaahdo waxaan ku naqaanaa hebelkaa daahir hebelkaa daahir anu maaragtay sheekh dhihi maaye daanyeer daahir wadaad saaqiday waxaan ku naqaanaa cali warsamaha gaalkacyo jooga ayaan ku naqaanaa wadaad saaqiday waxaan ku naqaanaa ictisaam oo dhan baan ku naqaanaa marka ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay meeshaas wax shira kama socdo wax shiroo ka dhici karana male lacagtuna way xaniban tahay annagoo memberiskia ayaa xanibnay ibraahim dheerow jaahil baa tahay kac maaragtay iska siigeysaan ku leenahay